Maayarka degmada Gabiley iyo barasaabka Gabiley xogayaha fulinta dawladda hoose ayaa Dhagxdhigay Garoonka Kubada Kolayga Gabiley oo hab casri ah loo dhisayo waxaana ka qayb yahay horumarinta dawladda hoose ay ka wado degmada Gabiley ee 2020ka ee Kubada Kolayga ah ay magaalada Gabiley yeelato oo ay hirgelinayso dawladda hoose Gabiley iyadoo laga hirgelinayo cashuurtii dawladda iyo mashaariic kale oo caafimaadka ah oo afara oo iyaguna dhismahoodu isla maanta bilaabayaan oo aynaan u gaadhayn duruufaha iyo hawlaha shaqeeya la ogeed waxay ka mid yihiin mashaariicii 2020ka dawladda hoose Gabiley u qorshaysnaa kuwii ugu dambeeyay in ku dhow 30 mashruuc ayaa sanadka qorshaysnaa inaan guud ahaan gobolka ka fulino wax dhamaaday iyo wax socdaba isugu jiraan waxa ugu dambeeyay xagga dhismaha mashruuca aynu maanta dhagax dhigano iyo 3-4 xarumo caafimaad oo laga dhisayo tuulooyinka kala duwan ee gobolka waxa laga dhisayaa xanaanada hooyada iyo dhalaanka tuulada Taysa waxa laga dhisayaa goob caafimaad tuulada Boqor waxa laga dhisayaa goob caafimaad oo kale tuulada la yiraahdo Laaca sidoo kale waxa laga dhisayaa goob caafimaad tuulada la yiraahdo Odax afarta dhisma ee xarumaha caafimaadka iyo halkan aynu hadda joogno waa mashaariicii aanu ku soo khatimanay sanadka 2020 waxaan ku jirin wixii dayactir iyo qalaba oo ay ka mid tahay gaadiid dhawaan iman doona aynu ka dhagax dhiganaa basketkii oo lahayd xaafadda New Gabiley taasoo ay nagu jirtay miisaaniyadda 2020ka aanu ugu talagalnay inuu ka hadlayno baahiyaha ay u qabaan dhalinyartu iyo xaafaduba ay u qabto taasoo ay ku fog tahay basketka iyadoo awal lahayd hal basket magaalada Gabiley ayaa waxa qorshaha golaha deegaanka ugu jirta inay afarta xaafadoodba ay gaarsiiyaan sanadkana ay ugu talagaleen inay basketkii ka dhisaan xaafadda New Gabiley anigoo ah shirkadda Xaaji Muuse Construction Company oo afkeeda ku hadlaya waa shirkadii tartamay shirkad kamid ah oo ku guuleysatay tartankii basketkan waa basketkii labaad ee loo dhiso farxad weyn iyo qiimo weyn bay naga nootay anaguna waxaan ballan qaadaynaa aanu sidii horeba looga bartay dhismo fiican oo tayo loo qiimo leh xaafadda New Gabiley ulajeedada u nimanno waxay tahay inaan dhagax dhigno basketkii labaad ee ka hirgeli doona gobolka Gabiley sanadkan waa sanadkii waxqabadka gobolka Gabiley ee miisaaniyadda wixii ugu qornaa in mid kastaba halkii miisaaniyadda ku jirtay la dhigayo annagu ka wasaaradahan inkastoo gudoomiyihii gobolkuna joogo waxaanu mar walba taageersanahay in lagu garab galo deegaanka iyo cid kastoo wax qabanaysa hawsha ay hayaan garoonka kubada kolayga kaasoo markaa dugsiga Imaam Shaafici laga bilaabi doono insha Allah taala waxa weeyaan waxbarashada deegaanka saad ogtiin waxbarashada iyo markaa waxa weeyaan sportigu way isku xidhan yihiin dhalinyarta iyo dhammaan dhalinyarta kale ee degan xaafadan sare ama suuqa sare la yiraahdo waxa weeyaan goobtan aan joogno marka basket looga dhisaa waa Mukhtaar Nuux Ibraahim Gobonimo TV Gabiley